حسن دقاسي وهاي كدقيمو وهاي كدقيمو فايرال هاي كدقيمو أيوة إذا طلع أنا أنت سكعنا تيجي في النهاية سنة في النهاية إيجي دقاسي والله وبالله وتالله أنا قلت بالله هذا متكلم كلا إيجي دقاسي واو حيواني وروح عندنا محيطة وحنيو محيطة كل الكان واقف موقف كان لا صور مولا الكيبة من هذا الكيبة ما قرابديسة مسحيب كيبة وكما قف كان لو ورجنيو dad kan loo sheegayo inay yihiin laba qof oo balaal ah si aynu bal arintan u fahanno bal wax yar aan dib idin celiyo saad u fahantaan goorta ninkan ay ku dhalatay inuu bal keeno qof walaalkiya muuqaal kamid ah muuqaalada ugu dambeeyay oo aan ku soo bandhigay xogaha ninkan la xiriira ayaa waxaan kaga hadlay asaga iyo hooyadii iyo qaraabadiisa uu ka dhuumanayo sida markaa isugu egyihiin waxaan idin sheegay inay wajiga xoog isaga egyihiin isla markaasna aysan cid walba isku ekaan karinin ilaa ay dadooda dhashay ma ahane wixii inta ka dambeeyay AJ waxa ku soo dhacday fikrada sideed ku heshaa bal qof ku eg oo aad u tiraahdo waa walaalkay oo markaa ummadda qaar badan oo kamid ah lagu jahwareeriyo kadibna wuxuu qaybiyay muuqaalkan waxaana loo qaybiyay dad badan oo asaga taageerayaashiisa iyo asxaabtiisa xogaa kadibna asaguna wuxuu soo galiyay isla muuqaalkii ayuu soo galiyay laakiin kuma uusan soo qornin waa walaalkay afkiisana wuu ka dhawra waayo waa arrin mar walbaba uu fahmi karayay inaan keeni karayo arrintaas waxaan shaahid ka ahay maalinta yawmal qiyaamo diyaarna u ah in su'aal layga weydiiyo waxaan halkan saaran photoshopkan screen shopkan halkan saaran inuusan ahayn screen shop sax ah inuu ahaa maalin maalmaha ka mid ah anoo tiktok dhex wareegaya inaan arkay wiilkan AJ ah oo leef ku jiro 2023 meehed mise 2024 bilowgeedii ahayd waqtiga si sax ah uma xasuusto maalin barqa ah kooda duhurnimo waxa ka horeeya ah ayaan waxaan arkay san jeclahay qiyaas ahaantayda waxaan arkay AJ oo leef ku jira oo sheekeysanaya waxa daawanaya qiyaas ahaantii 500 iyo xoogaa dad ayaa daawanaya in leefka la soo heli doonana waa jeclahay Soomaaliya waxaan u maleynayaa leefkaas lama duubin waxa dhacday markaa suu leefkii qofka wiilku uga sheekeynayay ayaa waxa uu wiilkan walaalkiisa soo agmaray kaas wiil kaale maanta walaalkii ayna baraya gadaashiisu soo istaagay waa wiilkan gadaashiisu soo istaagay kaas wiilkan walaalkii waa wadadii hoos iga yareed intuu la sii kaftamo wuxuu yiri inuu guursado ilaa hadda ma ogol ninka ilaa hadda ma guursan gabar waa in maaragtay waa in gabar aan u guuriya wax saasa ama inuu guurso ama gabar iska soo dhex saara reer community la hadlay waxa marka la yaabanahay in hadallada qaarkood ee been yihiin Soomaaliya inay sheegayaan laba nin oo social media ku jiro midna uu joogo Sweden midna uu joogo Mareykanka san jeclahay mise Scandinavia ku sugan joogo I don't know ayaa wiilkan waxa ay leeyihiin sawirkan waa sawir isaga halkii oo photoshop isku sameeyay ama waxay leeyihiinba sawirkan waa wax beena inta iyagu wax soo calaamadeeyeen wax soo xoqeen labadaas nin ilaahay kama baqayaan ani ma arkaysid marnaba anoo ka hadlayo nin ama naag raacay dad ajnabi ah nin naag ajnabi guursaday naag nin ajnabi guursatay dad caruurtoodu 50-50 ka dhigay dad aan caruurtoodu xaquuq u raadinin dad caruurtooda xuquuqdooda dhumiyay kama hadlo ninka xuquuqdiisi dhumiyay ee hadda naag aan la garanaynin waxay tahay kuwii la garanayaa la aamin laayay dad aan la garanaynin waxay yihiin oo dhaqankooda aan la garanaynin oo qaabkooda aan la garanaynin oo luuqadooda aan la garanaynin dad wax ku darsada aan lama hadlo kamana hadlo aniga 24/7 Ingiriis maxay saaray أنا بدلي بأنا 24/7 لوقت عن هين محي سارة لوقت عن أقدر أنا محي سارة ناق كلجر لو ركوي سو ماذا اللي كري لأي يا مسلم كأها ناق قال لي ما كوسو كرتي أدبان سلام الصومالية وفرح هولنا وكعصنا يا سبسكرايب يا لايك وحتى لو تسألنا كومنتي وراب أنت إيش فاهم الهرت ويسوى عرفتي من عليك مريسا ما أنت كتب بيسا حارد وحيد كتب بركمله وسوى عرفت dad aniga kamid ahay iyo sida Xuseen iyo dad fara badan ayaa age family waxaan kula talina waniyahow maadaama laga shakiyay ninkan daar cali soo family kani oo hooyo keenay oo leeyahay ninkan yani family kan ka dhashay leeyahay si magalaysa isku difaacdo waniyo adigana bal dadkeen ana walaalaha hooyada dadka kale keen
ninkii AJ ahaa meeluhu orday wuxuu sameeyey walaalkiis meesha keenay marka walaalkii markuu meesha keenay oo walaalkiis video la soo galay Soomaali waa taqaan dad waa taqaanaaye shakada dad wada bedel shakada dad wada bedel waxa la yiri ninkii waxa la yiri ba waa photoshop ninkan waxa la yiri walaalkiis maan waxa la yiri waa photoshop marka shakada waa si waartay waxa ka sameeyay daahirna markasta wuxuu isku dayaa inuu magaranaysa hadba cadeymihii iyo wixii loo baahnaa keeno cadeyn badan soo ururiyo maalin wuxuu keenay xildhibaan uu keenay maalinkan wuxuu keenay naag buu keenay waxaana walaashiis waxa soo keenay halka AJ family asagana uu keenay walaalkiis kaliya marka su'aasha waxa uu AJ niyo horta waa sax horta ma sha Allah magad si fiican way aan walaalka keentay laakiin walaalka ma shak ligli si marka marka shak uu baxo dad kale oo far badan keen gabadhan hadda waxay leedahay 2023 sanad ka hor ayuu maalin soo leef u jira ninkan walaalkiisa uu dadka baray bay leedahay marka dadkan hadda waxay yiraahdeen magaranaysaa ninkan waa photoshop marka waxaan oran lahaa oo kula tali lahaa ninkan haduu walaalka yahay live photo soo gal soo fariisi markaas hadaan waa photoshop hadaan soo fariiso live ninka kan taasoo mid niyahow haddii ay jiraan familkaada ama hooyada ama walaasha oo kale kula joogana niyow ayagana keen magarat waayo ayagana keen meesha soo fariisi AJ family anaga waa walaalkan dhaxdhaxa marka waxa fudud hadduu AJ dadka si keeno waalidkiisa dadka si keeno macnaha waa laga harayaa laakiin dadka si qariyo waxa dhibaato ninkan daahirna kama harayo maalin wuxuu keenaya maanta uu keenaya marka AJ waxa fiican oo markasta aan qol taliyaa niyahow dadka keen inkastoo markii wiilkii keenay leeyahay macnaha waa photoshop haddana inta badan AJ waxaan leeyahay niyahow dadka keen hooyada raadi hadday noo shaay walaalaha raadi TikTok soo gali halaga hadlo wajid Soomaa hadda ninka daahir dama joogay maanta waxa uu keenaya nin macnaha xildhibaan uu keenay mid wuxuu keenay isku dugsiyanay waa mid haddii ka Soomaa niyo AJ waxa samaysaa ninkan daahir la hadal daan talaashid hoos ka wacid saxaw iga degdeg ya daahir ka digo hawshan macnaha ka joojiyo saxaw daahir hawshan ala bilaabay ada bulshada uu soo jeediyay hawshan ka degdeg halku waxay tahay iyo hadii dadka ay family-ka aad keeni karin niyo daahir la hadal walaal daahir saxaw iga degdeg daahirna markaa ka deg macnaha ka aamus Soomaa laakiin hadii niyo adna iska aamusto dhibaato ana AJ waxaan kula taliyay marka soo talin waxay tahay ninka Xuseen kula taliyay niyahow dadka keen waalidka la arko dadka hala arko ma jirtaan waa dad fiican sharaf leh boqortooyada adeerada dadka keen hala arko dadka asxaabta like subscribe ma santiin